buugga la idhahdo The 5am Club ama kooxda 5 subaxnimo waa buug ka mid ah buugaagta uu qoray Robin Sharma oo ah qoraal Mareykan ah. buuggan wuxuu qoraalku ka hadlayaa 5% ka mid ah bulshada oo ah inta haldoorka u ah. qoraalku waxa uu leeyahay si ay u samaysanto caado cusub ama habdhaqan cusub oo qofku wax weeyaan ula qabsado una noqoto mid isbedel ku samaysa qofkaas in ay marto 3 marxaladood. 3 marxaladood waxa uu isugu soo ururiyay waa 66 cisho. 66 ka cisho waxa uu kala jajabiyay 22 cisho. Yani 22 days iyo 22 days iyo 22 days. Saddexdaas uu kala qaybiyay. qaybta koowaad ama 22 cisho ugu horeeya waxa uu leeyahay oo marka maskaxda laga dhaadhicinayo inay aqbasho yani caado cusub ama habdhaqan cusub oo meesha kii hore laga saariyo la burburinayo. marka xaaladani waa xaalad burburinta caadadii hore ama habdhaqankii hore si meesha looga saaro. waana xaalad uu qofku culays dareemo dadka intooda badanna oo halkii ku guuldareystaan. oo 22 cisho ugu horeysa waa marka ugu adag ama waxa xaalad ugu adag laga baxayo tiirada laga baxayo. 22 ku xiga waa 22 la yiraahdo installation-ka. yani 22 qofkii waxa uu maskaxdiisa ku shubayaa habdhaqanka cusub ama habidka cusub. tan oo maskaxdii ka dhaadhicinaya in waxa weeyaan habdhaqankaas ay ku dhaqanto maadaama 22 cisho hore uu meesha ka saaray caadadii hore. inta badanna xaaladdan qofku wuxuu dareemaa inuu isdhiibo. sidoo kale waxa uu qoraagu sheegay inay tahay xaaladda ugu wanaagsan ee waxa weeyaan meeshana laga saaray caadadii hore, caadadana waxa weeyaan maskaxda loogu xirayo ee lagu match garaynayo si ay ula qabsato. marka qofku waa inuu adkaystaa uu leeyahay xaaladdan oo isdhiibin isaga oo sawranaya waxa uu ka dhaxli doono marka marxaladdan waxa weeyaan uu ka gudbo. 22 ugu dambeeya 66 cisho waxa la dhadaa waa xaaladda ay maskaxdu bilaabayso bilow cusub una dhaadhacayso subconscious mind-ka caadadii cusbeed ee doonaysa inaad ka dhaadhiciso ama habdhaqankii cusbaa ee doonaysid inaad samaysato. waa xaaladda ay bilaabayso maskaxdu in waxa weeyaan ay dareento faa'iidooyinkii ay ka dhaxashay 44 cisho hore. tan oo sahli doonta in qofku uu ku dareemo 100% isbedel wanaagsan, inuu ku dareemo in qofku u fududahay in uu ku dhaqmo caadadan cusub. halka markii hore labadii waxa weeyaan process ama labadii nidaam hore ay adkayd culays badan uu dareemay. xaaladda qofku wuxuu dareemay inuu ku raaxaysanayo habdhaqankan cusub uu samaystay. qoraagu markaa waxaynu leeyahay si uu qofku isbedel u sameeyo caado cusubna u samaysto tii horena meesha uga saaro waxa u baahan yahay inuu 3 marxaladood u maro ee uu qaybiyay min 22 cisho. haddii aynu dib ugu yar noqono 22 cisho ugu horeeya oo 22 waxa weeyaan uu qofku meesha ka saarayo caadadii hore. 22 dhexe waa marxaladda uu qofku u diyaarinayo maskaxda inay aqbasho caadada cusub ee uu qofku markaas uu samaystay doonayana inuu ku dhaqmo. 22 ugu dambeeyana waa xaaladda uu qofku maskaxdiisii qaybta subconscious mind-ka uu gudbiyay caadadii una noqotay mid isaga u fudud oo ku dhaqmi karayo dareemi karayana waxa weeyaan faa'iidadeedii iyo wax soo saarkeediiba. haddaba buuggan waa buug aad u qiimo badan intiina doonaysa si gaar ah ugu soo